السلام عليكم waxaan caawa doonayaa inaan ni yara macneeyo cameraman-gu waa maxay dad badani waxay isweydiiyaan qaabkii ugu habboon loo macneyn karayo qofka cameraman-gu haddii aan yar fahamsiiyo waa qofka sawir amba dhaxal amba xasuus reebaya goobtaasi waxay noqon karaysaa aroos goobtaas waxay noqon karaysaa shir goobtaas waxay noqon karaysaa dagaal marka cameraman-gu wuxuu u kala baxaa farqiyo badan cameraman waxaa jira loogu talagalay in dagaalka ay soo duubaan cameraman waxaa jira loogu talagalay in ay wararka soo duubaan cameraman waxaa jira filmaanta soo duuba oo garanaya qaabkii filimka loo duubayo cameraman-intu haddii aan caawa iraahdo waan macnayni kama bixi karayo cameraman-gu wuxuu isticmaalaa qalab ka duwan ninkan photograph-ka dheeraa amba ninka sawirka qaada kamaradu laba u kala baxdaa mid waxa weeyaan kamarad caadiya iyo midna waa kamarad photo leeyahay oo sawir qaada kameradan photogu waxa weeyaan qofkiiba sawiraya qofkiiba program amba kamaradi buu hagaajisanaya suu xabad sawir uga reebo laakiin videoga amba qofkan kamarada duubaya cameraman-ga videoga duubaya wuxuu isticmaalayaa kamarad ka awood badan kamarad ka culus kamarad qaadi karaysa xaflad dhici karaysa meelaha saacad amba 2 saacadood oo aan joogsi lahayn sidaa daraadeed wuxuu isticmaalayaa bateriyo amba wax dabka u xajinaya si uu waqtiga intaa leeg u xajisto cameraman-gu haddii uu rabo in uu meeshaasi oo kooban oo duubo amba wax qurux badan oo ka soo saaro waa in qaab kala duwan u duubo xafladuhuna way kala duwan yihiin arooska bay noqon karaysaa waxay noqon karaysaa dhalasho bay noqon karaysaa amba anniversary sidaa daraadeed cameraman-gu waxa weeyaan ninka xafladaas duubaya 10 sanadood amba 5 sanadood kadib xasuusta reebay dadkaasi haddii ay matalan weynaadaan waxay daawan doonaan fideogii la duubay waqtiga iyo waqtiga cameraman-gu qaybtuu kaga jira bulshada oo qayb kulliba qof kastaba qayb kaga jira bulshada matalan ninka dhakhtarka amba doctorka wuxuu kaga jiraa qayb weyn oo bulshada oo in uu dadkii daweeyo oo caafimaadka Ilaahay baa hayay laakiin uu caafimaad u dadaalo dawooyinkii u qoro cameraman-guna waxa weeyaan qayb laf dhabar u ah bulshada cameraman-adu maanta waqtigan waa dadka aad loogu baahan yahay matalan wararka caalamka amba wararka ka socda bariga dhexe amba wararkaas wadan ilaa gobol u dhaxeeya waxa keenaya oo isku soo xiriirinaya waa ninka cameraman-ga teeraanka amba goobta u dhaadhacaya laf dhabar muhiim ah ayuu yahay bulshadu cameraman-gu maanta waxa yar aan soo koobay waxaan insha Allah ni tusi doonaa qaabka uu u duubi karayo cameraman-gu markuu xaaladda ku jiro dibadaas baan insha Allah fiidiyoyada dambe ni soo gudbi doonaa tan laakiinse waxay tahay hordhac yaro oo ah cameraman-gu waa maxay waxaan iga codsanayaa in like iyo share ii saartaan si aan anaguna fiidiyoyada dambe ni soo gudbiyo kuwa ka qurux badan oo faham ah cameraman-ga shaqada uu kaga jiro bulshada